oo suuqa lagaga hadlo oo ra'yi qof waxaan arkay wasiirka oo leh waxa madaxweynuhu aaminsan yahay iyo waxa ila tahay war sharci ma noqdo waxa aaminsan tahay waxa madaxweynuhu aaminsan yahay waxa ay kula tahay toona dalku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay haddii la ixtiraami waayo xeerarkana oo sharciga la ixtiraami waayana cawaaqibta ka dhalata waa la garan karaya marka waxaan leenahay sharciga hal ixtiraamo dastuurka hal ixtiraamo xeerarka dalku leeyahay hal ixtiraamo ra'yigaagu cidna ma khuseeyo ayaab leh shalay buu hor yaallay miiskoodii xukuumaddii inay kala hadasho kulmiye waa dayawga ku dhacay kulmiye iyo hoggaankiisii madaxweynihii iyo dawladdiisii dayawga ku dhacay baa ka muuqanaya xeerkii shalay hor yaallay ee madaxweynuhu soo celiyey ee uu soo diiday ee uu weliba sababeeyey ee uu yidhi dastuurkuu ka hor imanaya bal hadda u fiirsada isaga qoraalkiisa eega waxa uu ku sababeeyey inuu dastuurka ka hor imanayo wuxuu ku sababeeyey inuu xeerarka kale ee dalka sida xeerka 190 ee doorashooyinka inuu ka hor imanayo bal hadda u fiirsada madaxweyne baa caynkaa yidhi wasiirkiina wuxuu waa sharci waa dawlad marka aan iska hor imanayso aan sharciga ixtiraamayn waa dawlad marka aan iska hor imanayso aan sharciga ixtiraamayn madaxweynaha wasiirkiisii waa wax la yaab leh kuwa laga yaabo inuu fahamka ka qaldan yahay oo ku daba rogan yahay ee moodaya xeerka celintiisu inay tahay marka waraaqaa la soo qaadee la keeno baarlamaanka waxa ku qoran dastuurka oo haddaanad sharciga garanay ula tagtaa kolley ciiduun bay idin su'aalayo malaa sharcigaydan garanayne waxa weydiisaan kuwa garanaya hal ixtiraamo wasiirada dhidar onkad kiciyay leh ururada la furaya waar ururada hadii la furayo anagu codad kama qabno shalayna kuwii furay baanu hayn maantana hadii la furo waanu tartamaynaa waxaan u aragnaa in kulmiye hadhi doono waynu is arki doonaaba insha Allah ta'ala miidaan waasac baritaa la furi doona maalinteedii lagama soo horeysin karo laakiin maalin bay leedahay 22ka December bay ku qoran tahay waxa ka horeysa doorashada madaxtooyada haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac doorashadii madaxtooyada inuu galeynaa ninkii madaxweynaha hela ayaa furi doona